laakiin markii madaxda SDF ay arkeen inaan shirarkii waxba ka suurtagelin Soomaaliya dawlad dhisantana aanay dhaweyn hindisahaas Itoobiya baa qayb laga soo geliyay waxayna qayb ka noqotay tala ahaan iyo haday waxtar laga heli karaba in maamul loo sameeyo saddexdan gobol ee ka soo jeeda koonfur bari loo jiray intaan la gaarin fikirkii dheeraa oo la baahiyay marka Itoobiya baa qayb ku lahayd shan gabdhood oo shanta gobol Puntland ka soo jeeda waxaan kala xasuusnayaa baarlamaankaas waxaanu fokuska saaray ilaa rag dawlad yaqaan oo maamulka cusubna dawladnimo horseeda mustaqbalkana baarlamaanka soo socda ay ku daydaan waxa salfadhi waxa 23 oo khabiiriin waaya araga oo dawladda Soomaaliya u soo shaqeeyay waan hebel ku oran karo maanta wada dawli ah waxa kamid ahaa maxamed jibriil baa kamid ahaa nabadgelyada Soomaaliya haysan jiray waxa kamid ah kala jaban in loo oran jiray oo dawladda Soomaaliya ka soo shaqeyn jiray oo reer bari ah waxa